galankii dambe ee maanta qaraxa oo nooc uu yahay ilaa hadda aan la xaqiijin dadka qaarkii ay sheegayaan in bam dhulka lagu aasay ay ku qaraxday halka u dhaxaysa kaamamka dadka barakacyaasha ay degan yihiin ee Xanaano 2 iyo kaamka barakacyaasha ee Kormari ayaa la sheegaya in ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 qof halka dhimashadana la sheegayo in ilaa 4 qof ay dhinteen isbitaalka gobolka Baay ee magaalada Baydhabo oo iminka aan ka soo hadlayo waxaa la keenay 23 ruux hal dhimasho ah iyo 22 oo dhaawacyo kala duwan qaba sarkaalkan waa saraakiisha caafimaadka ee caawa heeganka ku ah oo bukaanada caawinaya ee qaraxyada waxyeelada ka soo gaartay waxa uu ka waramayaa xaaladda wiil 11 sano jir ah oo dhaawacyada ka mid ah waliba waa onogan dadka geeka qaraxga meelaha ku deeriya ku mid ay waliba leeray maxamed xasan ibraahim yalla runtii waliba jaran tumiko siniya jara runtii may leeray isu meel badan multiple injuries yallay waliba kamid mid qoorta ayaa ku galay fariir ya ka jar mid kale waliba naaska korshay ya ka jar mid kale oo hadda ilaahay naxariisis wali ka galay huma aragdi ilyag ingunal kanalka ya ka galay dib ya sii galay ilaa ma aragdi taay illa taay raajil saari dhaawaca hadda most likely wal oo hadda blood vessels injuries ma aragahayna laakiin kan hadda ankiyar dadka oo isbitaalka la sheenay lankan ankiyar way runtii agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Baay ee magaalada Baydhabo Cabdifataax Xaashi Ibraahim Gaabo oo halkan aan ku soo booqday waxa uu iiga waramay dhaawacyada soo gaaray iyo sida ay kala yihiin gobolka Baay waxa ay soo gaareen dhaawacyo oo markaasi dhaawacyadaas laga keenay magaalada Baydhabo gudaha gaar ahaan meelaha qaxootiga ay degaan IDP-yada dhaawacaas isbitaalka uu soo gaaray waxa uu gaarayaa tiradiisa 23 inkastoo hore 20 aan u sheegay laakiin gadaal dambe ayaa waxa la keenay 3 dhaawac kale dhaawacyadaas 23 ah waxa ku jiro qof meed ah ayaa ku jiro isagoo meed ah isbitaalka la keenay sida hadda aad u jeedaan dhaawacyada isbitaalka la keenay ilaa waqtigaas ilaa hadda oo haweenimo ah shaqaalaha isbitaalka iyo dhaqaatiirta dhan ayaa u kaceen waa loo adeegayay waqti xaadirka aan kula hadlayo isbitaalka shaqada loo qabtay waad u jeedaan wax oo hadda dhaawacooda halis ah oo anaga oo naga fara badan isbitaalka ma jiifo dhaawacyada waxay isugu jireen rag iyo dumar ay isugu jireen xitaa waxa ku jira caruur sidaad aad arkaysaan dhaawacyada intooda way bad qabaan wayna fiican yihiin isbitaalka caawa waxa ku hooyanay 18 qofood oo dhaawac ah qaar kalena iyagoo oo markaasi ay soo mareen qaybta emergency-ga tasiilaadka ay rabeen markaasi loo dhameystiray ayaa haddana xaafadooda lugtooda dib ugu laabteen waxaan rajaynaynaa xitaa dhaawacyada hadda caawa jiifa qaarkood beri subaxii inay bixi doonaan ilaahay doona gaarsiiyo qaybta ICU-ga ayaa waxaa jiifo 2 dhaawac oo markaas iyagana chest tube ay ahaayeen oo dhinaca dhiig hoos u daadanay labadaasna iyaga inta badan waa la tacaalay haddana way fiican yihiin waxay u baahnaayeen dhiigna waa lagu wada shibay wax hadda oo dhib ah taagan malan dhaawacyadana waxay noqdeen dhaawacyo aad u fudud oo isbitaalka oo aad oo la tacaalay dadkan lagu qarxiyay duleedka bari ee magaalada Baydhabo ayaa u damaashaadiyay maalinta labaad ee Ciidul Fidriga inta badan xariyaha dadka barakacay ay degan yihiin waqtiyada farxadaha ciida waa la damaashaada oo ciyaaro kala duwan oo hidaha iyo dhaqanka ayaa lagu soo bandhigaa laakiin markii ugu horeysay ma ahan oo kooxo ciyaaro kala duwan soo bandhigaya xariyaha dadka barakacay lagu qarxiyo